adduunyadan waa cajiib oo wax walba waad ku arkaysaa intaad nooshahay. waxaa laga yaabaa inaad sheeko un ku maqli jirtay, laakiin maanta waxaan kuu hayaa arrin dhab ah. ninkan aad u jeedaan waxa uu gacantiisa ku wadaa bisad ama mukulaal uu asagu bireeyey. waxa uu leeyahay maqaaxi weyn oo ku taalla xaafadda Nakuru ee magaalada Nairobi dalka Kenya. maqaayadaas waxaa lagu sameeyaa samuusaha iyo burka. ninkan arrintiisa shacabka ayaa ogaaday, kadib booliska ayay u gudbiyeen. booliska ayaa qabtay, kadibna maxkamad ayaa loo gudbiyey. waxa uuna qirtay muddo 10 sano ah inuu arrintan ka shaqaysanayay. xaafadda Nakuru ee magaalada Nairobi waxaa degan Soomaali aad u fara badan oo weliba aad ay u garanayaan magaaladaas. haddaba daawade, sidaad u aragtaa arrinta noocan ah? mise aaminsan tahay Soomaaliya gudaheeda in laga helayo maqaaxiyo farsamooyinka noocan ah lagu sameeyo oo lagu iibiyo bisadaha iyo mukulaalaha? fadlan sheer garee oo la wadaag asxaabtaada si looga taxadaro maqaayadaha noocan oo kale ah Nairobi iyo weliba wadamada adduunka oo dhan. waxaa idiin soo saara walaalkiin Okiale. Share. Thank you very much. The exhibit, that is the carcass of the cat, is to be disposed of immediately.